رمضان welcome holy month. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta إن شاء الله waxaan rabaa inaan la qaybsano wax jirkeena u fiicnaan kara bisha Ramadaan waa goynta sonkorta xun oo lagu beddelay sonkorta wanaagsan. sonkorta mar walba runtii jirka uma fiicna in Ramadaan markay tahay way kasii xag jirtay oo jirkii maanta dhan oo manay oo shahiid ku jiray oo wuxuu xareystay oo xafiday cunay ama fat burning ku sameeyay gubanay energy ka raadinay ayaan hal mar sonkor culus ku ridnaa way kasii khatarsan tahay mararka kale. laakiin sonkortu mar walba wax khatar ah oo waxyaabaha keena diabetes type 2 lifestyle loo yaqaan cudurrada lifestyle loo yaqaan oo dhan waxyaabaha keena ka mid tahay cudur aad u fara badan bay keeni kartaa sonkortu jirkaaga dabeecadda ka xumeynaysaa hurdada ka khalkhalinaysaa dehydration bay jirka u ridaa aad bay runtii u badan yihiin cilladaha sonkortu keento waxa ugu badan waxa weeyaan insulinta jirkeena khalkhal geliso taasoo qofku markaa ku keeni karta macaan cudurka macaanka la yiraahdo habase ahaato in anagu sonkor waxaynu naqaanaa sonkorta cad oo noocan ah taas shaaha lagu darsado xalaawiyaadka waxyaabaha lagu sameystay inuu naqaanaa waxyaabaha kale arkaysin sonkor meesha yaalo wada sonkor ba ku jira sonkorku waa ma naqaano waa sonkortu jirku u baahan groupka kale laakiin sonkor nooca inuu naqaan waa tan buniga ah oo noocii buniga ahayda oo sidana iyo waxaynu naqaanaa tan kale cad maxay ku kala duwan yihiin labadan sonkorood runteed markaad hore waxba kuma kala duwan aanan ahayn tan waa markii iyadoo sideediya oo qasabkii la tuujiyay waxa ku jira wali mineralski vitaminada qaar kamid ah tanina waa la soo dhaqay la soo cadeeyay waxba kuma jiraan laakiin xagga sonkorta blood sugar-ka labadu waa iskaga mid si khalkhalka way keeni karaan labadoodaba marka waxaan rabaa insha Allah inaan sonkorta noocana aan iska dayno oo waxyaabaha jirka maxaan ku dhado uu cufo cholesterol-ka sonkorta keena khalkhalinta jirka oo dhan metabolismka jirka oo dhan bay khalkhalin karaan marka waxaan jecelahay insha Allah kuwaas aan sonkorta in naqaano jirku u baahan yahay in naqaanay inaan dhinaca dhigno waxyaabo jirka u baahan yahay waa sonkor jirku kama marnaba waa sababta unug kasto jirka ka mid yahay sonkorku u baahan yahay si marka uu energy u dhalin karo oo u shaqeyn karo sonkorta marka u baahan yahay waxa weeyaan waxaynu ka heli karnaa waxyaabo darkiisiin waa glucose waxa loo yaqaano halkan waxaa yaala waa sabiib runtii aad buu macaan yahay kan waxa igu jira timir maxaan ku dhadaa xabxab iyo bahalkaas kala darkiisin xaggaasna waxaa soo khudrada taala oo nooc walba maxaan ku dhadaa macaankeedii ay leedahay habase ahaato waxaan rabay waxa weeyaan inaad jirkaaga aad gelisid sonkorta wacan runtii maxaad u gelinaysaa maxay tahay markeeda koobaad waxa weeyaan markeeda koobaad waxaad ka badbaadaysaa inaad miisaankaaga kobco markeeda labaad miisaanka caloosha waliba fuul calooshaadu rag iyo dumarba inay caloosha miisaanka fuulo ayaa ka badbaadaysaa markeeda labaad waxaad ka badbaadaysaa waxa ugu muhiimsan ay tahay insulinta jirkaaga inay khalkhasho markeeda saddexaad waxaad ka badbaadaysaa cudurrada ay keedin karto sonkorta oo macaanka ugu horeeyo inaad ka badbaadid insha Allah taala waa hadduu Ilaahay noo ogolaado wax kasta oo aanu cunno sonkor baa ku jirta intooda badan sonkor baa ku jirta horta shay walba sonkor way ku jirtaa oo Ilaahay ku abuuray shayga arkaysid hadad maanta hadhuudh ama qamadi aad karsanaysid sonkor way ku jirtaa laazim way ku jirtaa oo sonkorta nooca wanaagsan Ilaahay ku abuuray sonkortu maxay markeeda horeba ay tahay oo waxa jirkaaga u baahan yahay sida darteed ayay dhir iyo wax walba Ilaahay ku abuuray sonkor laakiin tan tooska loo gelinayo jirka ayaa la diiday marka tooska loo gelinayo waliba bilaa qiyaasta ah koobka la iska miisanayo shaaha lagu miisanayo kafeega lagu miisanayo smoothie cuntadii kale keegagii xalaawiyaadka anagu waliba waxaan dadka kaga sii dheernahay xalwad ba la yiraahdo cunaa sonkor socotaa waa sonkor kaliya ta saafraanka lagu darayo iyo jawskara lagu idgoonay iyo saliid lagu karinayo ma inta kala dhoon sonkor marka taana dadka waan kaga sii darnaa inaan sonkor toos liqliqno على كل حال إن شاء الله تعالى هذا بس سنكرها هاللي بدله إن شاء الله وحيابهني اسمودية فربنا أنقسمين بلا سنكرة هذا معان يعني إن شاء الله يدين فايدين دونا هو كانوا حقيقة لو يوغرت كان كنت بلين يوغرت أما ناتشرال يوغرت كله هذا
markaad yogurt cunaysid xitaa even waxyaabaha tan waxaan tusaale ahaan uga soo qaadanaya shay walba sonkor baa ku jirta nidhi yogurtka soo iibsanaysaa sonkor baa ku jirta iska dhaaf kan soo gado waxaad ku macaanaysan kartaa timirtaada waxaad ku macaanaysan khudradda waxaad ku macaanaysan sabiibka waxaad ku macaanaysan kartaa malabka malabyadu way kala duwan yihiin kan runtii maxaan ku dhahday waxa loogu talagalay in lagu tuujiyo wax oo si easy saa wax loogu tuujisan karo dhadhan aad u fara badanna ma leh urti waxyaabo badan baa laga saaray si uu markaa u bedeli karo sonkorta halka sonkorta u bedeli karo waana dabiici qofkii raba maasha allah amase waxaynu haysanaa malabyadeeni wadankeeni caagad dhan oo buuxda halkan i taala malaba iyaga qudhoodana iska ilaaliya marka malabka wadanka laga keenayo inaad maxaan ku dhahdaye sonkor bay ku daraan baryahan dambe oo meel sonkorta wax kasta waa lagu daraa marka insha allah iyagana waxaan rajaynayaa inaad dirsataan malab aanan sonkor lahayn oo sonkor lagu darin marka wax kastaad ku darsan kartaa markaad adigu malabyadaadii haysatid maqaacadaada yar baad saa u darsan wax walba ayaad ku darsan kartaa jirkaaga si walbaad ugu isticmaali kartaa wax khalkhalinayaana ma jirto laakiin bilcaks qofkii xasaasiyad ku leh ama dhib ku qaba caruurta yar 1 year ka yar dadkaasi inay isku taabanin insha allah malabada dhakhtarkooga mar walba hala xiriiraan oo sonkorta habka kale ku bedeli lahaayeen waxyaabay kale ku bedeli karaan dhakhtarkooga ha weydiistaan ilmaha yar yar iyo 1 year ka yar iyo maxaan ku dadka xasaasiyadka qaba allergiga ama cilado kale jiraan ama xanuuno kale jiraan u diidaya ama dawooyin qaadanayo kala khalkhalinayaan dadkaasi gooni bay naga yihiin waa intayna caafimaadka qabto waxa lala hadlaya amase waxaan oo dhan waa waxaad maalintii aad ku bedelan kartid macaan haddaad doontid inaad qariiran kartid kan ama maxaan ku dhahdaa waxyaabaha kala cuni kartid amase lowsaskana runtii way ku jiraan sonkor aad u macaan baa ku jirta lowsas kala duwan haddii aad soo dhigatid guriga iyaga qudhooda waad aad iyo aad baad uga helaysaa maasha allah tabaaraka allah sonkortaadana way u baabiinayaan muhiimadda aan ka leeyahay marka waxa weeye sonkorta markay jirka ku badato waxaa ku badanaya cortisolka iyo adrenalinka waa hormoonada stresska markay ku bataan jirkaagana dhibaatada badanaysa dhiigaaguna ma xadidi karo oo ma iska celin karayo sonkorta intaa leeg ee aadka u faraha badan leh marka waxaan rajaynayaa inaad jirkaagu maalinta wuxuu u baahan yahay 10% inuu 10% inay noqoto sonkortiina ma aha labadii aan dhinaca u dhigay sonkorta cadeyd iyo sonkorta buniga ama aha waa sonkorahan kale intan kale inuu arkayno weeyaan aan ka qaadan karno macaanka ka heli karno in lagu bedelo haddaad insha allah runtii aad goysid wallahi sonkor haddaad goysid dadka miisaanka horta miisaankaaga aad buu dhacayaa calooshaadu way noqonaysaa halkeed rabtay tegaysaa dadka sonkorta leh sonkortoodu way dhacaysaa oo yacni balance bay yeelanaysaa dad oo laguma talagelin qof sonkor laga helay sonkor toos inuu cuno sonkor iyaga loogu talagalaa jirta oo bilaa calorie oo dhiig aan khalkhal gelinaynin amase rabadaantana way ka jirtaa oo jirku maanta dhan wuxuu cunaya isticmaalaya oo energy ka dhiganaya waxa weeyaan wixii uu xareystay maadaama wuxuu u xareystay cunayay waxa wanaagsan marka inaad sonkor ku buuxinin markiiba so jirka ayna sugar shock ugu dhicin oo maxaan ku dhahay sonkorta shock ayna jirka ugu ridin oo ina unugyada u khalkhalin oo dhiig u khalkhalin insulinta jirka ugu badanin ayaa waxa la rabaa afurkaaga inaad sonkor ka ilaalisid inaad smoothiga iyo waxaad cunaysid iyo waxaad laaqanaysid waxyaabahan ku laaqatid haddaad ka maarmi weydid malabka ku darso insha allah isagana ha ku badin beerka ha u gelinin waa sonkor ku filan isagaba ku jirta dadka macaanka lehina aanu dadka macaanka lama hadlayo dadka macaanka la dhakhtarkooga mar walba la talinaya talaga inaad ka qaadanin maxaan ku dhahdaa video yar gabadh soo dhubtay ama google-ka wax laga akhriyo cilmi maaha dhakhtarkaaga ayaad mar walba ka qaadanaysaa talada waayo anagu inaan dadka wax u faa'iidinaan ugu talagelin oo dad khalkhaliya uguma talagelin insha allahu tacaala marka waxaan rajaynayaa sonkor in hawada laga saaro taas waxaan daliil iniga dhigayaa in laga maarmi karo sonkorta wallahi haween waxaan garanayaa igu xidhan hadda waa laga yaabaa inay maqlayaana way dhegeysan doonaan sonkorta ma dayn karna yidhi haddana daaya wiig gudaheed ka sonkor ka soon afkaaga ha gelinin jirku wuu nici wuu baran unugyadu way baranayaan ayaamaha horeysa waa tawakhi energy la-aan baa kugu dhici stress badan baa kugu dhici waad cadhooni si kalaad noqoni waad soomahaadi kulligaago dhani wiig hadday kula dhaafto sonkor lagugu kari maayo si iyadaad ku bukoon hadhow toole wiiga u horeeya waad u bukoon wiiga dambe ee markaad wiiga ka gudubtid iyadaad ku bukooni marka insha allah wixii rabadaanta la cunaya iyo mar walbaba macaanada noocyadan ha lagu bedesho malabyada kala duwan ha lagu isticmaalo timirta ha la isticmaalo sabiibka
lawsaska ama samxan ku raday qudradaha kala duwan halo cuno qofka sonkor ka raadiyo haday noqoto yogodhana iyo waxyaabahana wax walba waxaad ku sameystaa dabiici sakan oo kale dad imika wali ku shubatid bilan yogodka oo malab yar ku darsatid oo sabiib yar ku dartid lawsa ku dartid ilaa raxmaanka ku dartay ka dukaanka laga soo binaysaa ka macaananaya jirkaaguna isaga ugu nafaqo badan inta soo wax nafaqo leh oo caafimaad leh oo duwayn labad ku darsatay sonkortii xumaydna wad ka saartay faa'iido mar walba qabtaa marka insha Allah intaas ay faa'iidahay maanta sonkorta ayaana waxaan rabaa insha Allah tilmaamo dufanada kala duwan iyo khatarta jirka u leeyahay white carbohydrate-ka oo quick high energy noqonaya iyo proteinka wanaagga jirka u leeyahay in proteinka aad loo isticmaalo iyo proteinada kala duwan ee kala nooca ah barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran waxaan rajaynayaa afur bila sonkora in lagu dadaalo bisha Ramadaan insha Allah la barto saan uga soonnay wax kasta oo Ilaahay naga fadilay inaan sonkorta uga soonnay insha Allah barakallahu fiikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh